halkan idinkaga soo gudbin jirnay fadlan janalkeena haddii aad ku cusub tahay oo aadan horey subscribe u saarin fadlan hadda subscribe saar sidoo kalena gambareelka furo si mar walba ay kugu soo dhacaan xogaha xasaasiga ah iyo wararkaynu halkan soo gelin muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan like saar siina share garay asxaabtada la wadaag dhegeystayaal warkeena qodobada xasaasiga ah ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Cabdi oo isugu habeenkii xalay ahaa ku laabtay dalka Turkiga kadib markii dowladda Jabuuti ay hor istaagtay safar uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho. Fahad Yaasiin waa uu baaqday maanta inuu yimaado magaalada Muqdisho goormay imaanaya xaaladiisuna waa sii dagaalka foolka-fool ee magaalada Baladxaawo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa Kenya iyo ciidamada dowladda oo la wareegay gaadiid dagaal. guddiga amniga qaranka ee hogaaminaya madaxweyne Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inay soo bandhigaan xogta sargaalad Ikraan Tahliil oo la yahay hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo iyadu safar degdeg ah maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho uga baxday iyadoo aaday dalka Kenya. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya sababta hooyada Ikraan aysan uga hadlin degmada Fahad Yaasiin loo diiday inuu magaalada Muqdisho soo aado ama uu yimaado iyadoo hooyaqaali ay Fahad Yaasiin ay doonayso in cadaalad la mariyo. haddaba sababta ay hooyaqaali ay uga hadli weyday degmada ay Roble iyo sidoo kale kooxdiisa ay u hortaageen maalintii shalay ahayd inuu Fahad Yaasiin magaalada Muqdisho yimaado ayaa dad badan su'aalo iska weydiiyeen. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo mudane Fahad Yaasiin oo laga yaabo markuu dalka ku soo laabto inuu dacwad ku furo ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga labada nin ay u kala magacaabeen Roble. inkastoo ra'iisul wasaaraha cidii doonaysa inay maxkamadayso aysan fududeyn in si qof caadi ah oo kale loo dacweeyo. dhegeystayaal warkeena qodobada wada xasaasiga ah ayaad ku maqli doontaan ee ku soo dhawaada warkeena oo fidsan. sida aynu ka helnay mas'uuliyiin ka agdhow taliyaha nabad sugidda taliyihii hore ee nabad sugidda haddana ah la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin maanta oo 18 bisha ah waxa uu ku sugan yahay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul. Fahad Yaasiin ayaa asagu waxa la sheegay inuu maanta ka baaqday safar uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho. habeenkii xalay ahaa ayuu ku laabtay magaalada Istanbul iyadoo dowladda Turkiga ay dejisay mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan magaalada Istanbul iyadoo amniga la taliyaha amniga qaranka ay dowladda Turkiga il gaar ah ku eegayso. sidoo la xaqiijiyay maanta 18 bisha ah kuna beegnayd inuu Fahad Yaasiin uu guddiga amniga qaranka ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo uu siiyo xogta Ikraan Tahliil ayaa la xaqiijiyay inuu baaqday oo safarkiisa u ka baaqday. laba diyaaradood oo ay midna tahay mid ciidan midna ay tahay mid rayid ayaa waxa ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxayna labada diyaaradood soo kala caga dhigteen. midda rayidka waxay soo caga dhigatay qaybta diyaaradaha rayidka isticmaalaan waa diyaaradda Turkish Airlines waxayna waday dad shacab ah oo ahaa dadkii maalintii shalay ahayd ay dowladda Jabuuti ku dhibaataysay dalkeeda una laabtay Turkiga maantana yimaaday. sidoo kale diyaarad kale oo military ayaa iyaduna waxay ka degtay garoonka diyaaradaha qaybta afisyoona ama qaybta ciidanka. diyaaradaas ayaa sida aynu warar hoose ku helayno waxa ay siday hub iyo ciidan. Fahad Yaasiin ayaa soo waxa uu waday warbixin iyo xogo ku aadan kiiska Ikraan Tahliil iyadoo qorshahu uu ahaa in maanta uu golaha amniga qaranka uu ka horjeediyo xogta Ikraan Tahliil. waxaana wararku sheegayaan in Fahad Yaasiin uu hayay warbixino codod xogo aad u waaweyn oo ku aadan kiiska Ikraan Tahliil iyadoo ra'iisul wasaare Roble uu aad uga cabsi qabay in xogtaasi uu soo bandhigo Fahad Yaasiin. ra'iisul wasaare Roble ayaa soo waxa uu muddo badan hor istaagay in taliyaha hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin uu soo bandhigo kiiska ama xogta sargaalad Ikraan Tahliil iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiiyeen sababta uu ra'iisul wasaare Roble u hortaagan yahay ama uu uga soo horjeedo in Fahad Yaasiin uu soo bandhigo xogta kiiska Ikraan Tahliil. dowladaha Turkiga iyo Qatar ayaa iyagu waxa ay dowladda yar ee Jabuuti culays weyn ku saareen in ay fasaxaan taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin iyagoo cadaadis weyn ku saaray ama aad uga canaantay sababta ay u xamiyeen taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin iyadoo dowladda Jabuuti ay arrintaasi aad uga ceebowday. dhanka kale golaha amniga qaranka ayaa isagu waxaa lagu wadaa
in maanta uu soo bandhigo ama lagu soo bandhigo xogta sargaalada Ikraan Tahliil ee golaha amniga qaranka waxa uu ka kooban yahay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha wasiirka amniga wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada dawladda haddaba arintaas waxa aad loola yaaban yahay qaabka lagu soo bandhigi karo xogta Ikraan Tahliil maadaama golaha amniga qaranka uu laftirkiisu kala qaybsan yahay wasaaradda amniga laba wasiir ayay hadda leedahay taliyaha nabadsuuda laba taliya ayay leedahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isma haystaan sida daraadeed ma dhici karta ayaa leeyahay in golaha amniga qaranka uu si wajira u fariisto waxaana laga yaabaa in garabka madaxweyne Farmaajo ay fariistaan halkaasna lagu soo bandhigo xogta sargaalada Ikraan Tahliil lama oga shirka golaha amniga qaranka in uu maanta u baaqan karo maqnaanshaha Fahad Yaasiin uu maanta ka maqan yahay dalka inkastoo laga sugidu ay sakariya ahaan jirin Fahad Yaasiin oo ay jiraan saraakiil badan oo la soo shaqeeyay Fahad Yaasiin qaarkoodna aad u dhawaa oo ayagu ay soo bandhigi karaan haddana ma hubno in maqnaanshaha Fahad Yaasiin ay saameyn ku yeelan karto warbixinta la rabay maanta in la yeesho balse wararku waxa cadeynayaan maanta ila biri in golaha amniga qaranka uu fariisanayo laguna soo bandhigayo xogta kiiska sargaalada Ikraan Tahliil sida warar kale ay ku helayno Fahad Yaasiin wuxuuna ku imaanayaa diyaarad khaas ah oo ay leedahay Turkiga diyaaradaas oo ay sijirin cid argagadeyn karta meel ay transit ku mareysana ay sijirin oo ay sijirin Djibouti ama dal kale oo ay madarisna sida Kenya Ethiopia iyo Djibouti oo diyaaradaha caalamiga imaanaya markay Soomaaliya imaanayaan ay transit ku maraan dalalkaasi ay ku mareen oo toos Djibouti ay keenayso lamana oo goorta ay keenayso balse maanta gariga horma oo soo bixin laga yaabo warkan markii ay soo dhignay kadib inuu soo baxo inta kale hooyada dhashay sargaalada Ikraan Tahliil hooyo qaali guhad ayaa iyadu maalintii shalay isaga baxday magaalada Muqdisho dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay su'aalo iska weydiiyaan habdhaqanka hooyo qaali markii la afduubtay gabadheeda oo la waayay maalintii la afduubtay maalintii ku xigtay ayay warbaahinta la hadashay waxayna sheegtay in gabadheeda uu afduubtay taliyaha nabadsuuda Fahad Yaasiin iyo sidoo kale Cabdullaahi Kulano oo isagoo ahaa ku xigeenka Fahad Yaasiin dad badan ayaa waxa isweydiinayaan sababta ay hooyada gabadhaasi hal maalin kadib markii gabadheeda la waayay ay warbaahinta u hadashay oo ay ayadoona hubsan gabadheeda meesha laga aaday cidda afduubtay ay dusha uga saartay taliyihii hore ee nabadsuuda Fahad Yaasiin iyo sidoo kale nabadsuuda arinta laga yaab kale ayaa waxay tahay in hooyo qaali ay maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho isaga baxday hooyo qaali warbaahinta lama ay sahalin kamana ay sahalin xaaladii hadda ugu dambeysay Fahad Yaasiin oo asagu ah shakhsiga ay ku eedeynaysa in gabadheeda uu dilay oo afduubtayna magaalada Muqdisho markii laga celiyay kama ay sahalin hooyo qaali hadii ay gabadheeda cadaalad u rabto shakhsiga ay ku tuhumsanayd in magaalada Muqdisho laga celiyo sababta ay u aamustay ay dad badan isweydiinayaan la yaab ku noqotay dhanka kale xarunta nabad sugidda waxa buux dhaafiyay ciidamo hor leh oo ayagu maanta la geeyay ciidamadaas oo ka tirsan kuwa duufaan iyo kuwa kale oo ka tirsan booliska Soomaaliya lama oga sababta loo geeyay halkaasi balse waxa laga yaabaa in soo laabashada Fahad Yaasiin uu soo laabanayo laga yaabo inuu halkaasi gaaro si macluumaad iyo xogo kale uu la soo helo ama uga keeno xarunta nabad sugidda maadaama halkaasi lagu kaydiyo sirta dawladda iyo xogaha ay sirdoonka Soomaaliya hayaan lama oga sababta rasmiga ah balse wararku waxay sheegayaan in tiro badan oo ka tirsan ciidamada duufaan watana beebeeyaal oo ah ciidamo hor leh ay u gaareen halkaasi ayagoo xarunta nabad sugidda laga ilaaliyay inuu cagta soo dhigo taliyaha uu sheegay Roble in uu nabad sugidda u magacaabay ilaa haddana waxa la sheegayaa in uu sijirin meel uu ku shaqeeyo ama xafiis uu ku shaqeeyo dhanka magaalada Balad Xaawo waxa ka dhacay shaqaaqa u dhaxaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Kenya ayaa iyagu saaka waxa ay xabad la dhaceen muwaadin Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah kana mid ah dhalinyarada magaalada Balad Xaawo ayagoo la sheegay in xabadda ku dhacday muwaadinkaasi ay sababtay inuu dhinto inta kadib ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isla markiiba arrinta jawaab ka bixiyay waxa ayna weerar ku qaadeen ciidamada Kenya ee ku sugnaa xuduud beenaadka ayagoo halkaasi la sheegay inay isaga carareen waxayna halka uga tageen gaadiid dagaal ciidamada Kenya
waxaa jira dhaawac soo gaaray askartooda qayb ka mid ah balse ma jira wax ka dhintay inkastoo lagala wareegay gaadiid dagaal madaxweyne farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku furnaa dagaalo dhinacyo badan lamana oga xaaladda u dhaxaysa xaaladda Kenya iyo Soomaaliya haddii ay ka darto oo dagaal hubeysan ay dhex maraan ciidamada dawladda iyo kuwa Kenya sida uu noqon doono xaaladda madaxweyne farmaajo ayagoo hadda dagaalo dhinacyo badan ah ay ku furan tahay dhanka kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka mid ah mucaaradka waaweyn ee madaxweyne farmaajo ayaa si adag kaga falceliyay go'aankii uu shalay Rooble uu kaga hor istaagay diyaaradda Turkish Airlines oo magaalada Muqdisho u soo siday muwaadiniin Soomaaliyeed oo shacab ah iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Cumar Cabdirashiid ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay muwaadiniin Soomaaliyeed in laga hor istaago inay dalkooda u soo safraan waxaana falkaasi uu ku tilmaamay mid halis ku ah dowladnimada Soomaaliya waxa uu ra'iisul wasaaraha hore sheegay mustaqbal caafimaad qaba lagu heli karo in la dhowro xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo laga fogaanayo go'aan kasta oo qof muwaadinimadiisa lagu dulmin karo isagoo wax dambi aan dalka ka gelin hadalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ku soo aadaya xilli uu xargaha goostay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne farmaajo iyo isaga ayagoo madaxweynuhu awoodiisa dhimay Rooble ayaa u muuqda inuu waayay garba culus oo siyaasadda ka mid ah garba cusub asaga aad uga dhawaa sida maamul goboleedyada iyo xubno sare oo ka tirsan mucaaradka kadib markii uu qaaday talaabooyin halis gelinaya dalka isla markaana doorashada mugdisi gelinaya dhanka kale 22 bishan oo ku beegan maalinta talaadada ah waxa magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ka qabsoomaya shir xasaasi ah shirkaas oo dhabarjab ku ah ra'iisul wasaare Rooble ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay shirkani waxa isugu imaanaya shanta dowlad goboleed shirkaasi kama uu qaybgalayo ra'iisul wasaare Rooble iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir arinta isweydiinta mudan ayaa waxay tahay in Rooble uu asugu yahay shakhsiga loo xilsaaray doorashada dalka inuu hogaamiyo balse shir looga hadlay arrimaha doorashooyinka uu ka qaybgelin taasoo ah natiijo ka dhalatay dagaalka bila sababta ah ee maalmihii ugu dambeeyay uu kula jiray madaxweyne farmaajo iyo taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin Rooble ayaa waxay ku noqotay arrintan dhabarjab weyn Rooble ayaa filinayay haddii uu dagaal ku qaado madaxweyne farmaajo inuu howlo ka heli doono beesha caalamka maamul goboleedyada balse nasiib wanaagtaasi ma aysan dhicin oo maamul goboleedyadu waxay qaadeen tilaabo lama filaan ku noqotay asaga halka beesha caalamkuna ay ku dhiirigelisay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay inay isxaliyaan oo khilaafka iyaga u dhaxeeya ay meesha ka saaraan dhanka kale wadamada iyo hay'adaha daneeyaarimaha Soomaaliya ayaa si wadajir ah uga soo saaray war-saxaafadeed khilaafka u dhaxeeya madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta war-saxaafadeedka ayaa ugu horeyntii lagu soo hadal qaaday sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay heshiiskii 17 September iyagoo walaac ka muujiyay khilaafka madaxda dalka u dhaxeeya iyadoo dadka Soomaaliyeed ay xusayeen sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay heshiiskii 17 September ayaa saaxiibada beesha caalamka waxay aad uga walaacsan yihiin in khilaafka sii kordhaya ee u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu wiiqi doono xasiloonida Soomaaliya isla markaana uu carqaladeyn doono geedi socodka doorashada beesha caalamka ayaa ugu baaqday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay si dhaqsiyo ah u xaliyaan khilaafkooda waxaan ku boorinaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay si degdeg ah u xaliyaan khilaafkooda ayna ka fogaadaan isweydaarsiga qoraalada guud ee aan waxtarka u lahayn bulshada iyagoo arrintaasi ay keenayso in xaaladda ka sii darto ayna dib diiradda u saaraan sidii loo soo gabagabeyn lahaa doorashooyinka waqtigooda dib uga dhacay iyadoo aana dib u dhac kale aysan dhicin ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyntii beesha caalamka ayaa ka digtay sii socoshada khilaafka arrimaha siyaasadda ee u dhaxeeya madaxda ugu sarreysa dalka dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin oo ay mudan yihiin maamul dawladeed oo wax ku ool ah oo loo dhan yahay kala qaybsanaanta socota iyo siyaasadaynta hadda socota waa halis weegi karta horumarka muhiimka ah ee lagu tilaabsaday
wadamada iyo ururada soo saaray war-saxaafadeedka ayaa kala ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Kenya, Jaamacadda Carabta, Norway, Qatar, Sweden, Switzerland, Turkey, boqortooyada Ingiriiska, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Roble iyo sidoo kale dadka la socda ayaa waxay aaminsanayeen shirka degdega ah ee qaramada midoobay ama caalamka ay ka yeesheen arinta hadda soo kortay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha in ra'iisul wasaaruhu uu garab ka helayo beesha caalamka oo beesha caalamku ay la safan doonto Roble, balse taasi ma dhicin. Roble ayaa isagu labadii maalmood ugu dambeysay waxa uu la kulmiyay talaabooyin iyo dhacdooyin asaga dhabar jag ah, waxaana ugu horeysay warqadii madaxweyne Farmaajo uu ku dhimay awoodiisa. waxaa ku xigtay warqadii ka soo baxday maamul goboleedyada, waxaa haddana ku sii xigtay carqaladayntii uu sharci carqaladeeyay diyaaradda dadka shacabka ah iyo Fahad Yaasiin waday ee magaalada Muqdisho keeni lahayd, waxaana ku sii xigtay beesha caalamka warkan ka soo baxday iyadoo intaasoo dhanba ay asaga dhabar jag ku tahay. بسم الله الرحمن الرحيم. dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii aynu halkan idinkaga soo gudbin jirnay. fadlan janalkeena haddii aad ku cusub tahay oo aadan horey subscribe u saarin, fadlan hadda subscribe saar, sidoo kalena gambaleelka furo si mar walba ay kugu soo dhacaan xogaha xasaasiga ah iyo wararka aynu halkan soo gelino. muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan like saar, siina sheer garay asxaabtooda la wadaag. dhegeystayaal warkeena qodobada xasaasiga ah ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Cabdi oo isagu habeenkii xalay ahaa ku laabtay dalka Turkiga kadib markii dowladda Jabuuti ay hor istaagtay safar uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho. Fahad Yaasiin waa uu baaqday maanta inuu yimaado magaalada Muqdisho goormay imaanaya xaaladiisuna waasir. dagaalka foolka-fool ee magaalada Baladxa oo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa Kenya iyo ciidamada dowladda oo la wareegay gaadiid dagaal. guddiga amniga qaranka ee hogaaminaya madaxweyne Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inay soo bandhigaan xogta sargaalada Ikraan Tahliil oo la leeyahay. hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo iyadu safar degdeg ah maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho uga baxday iyadoo aaday dalka Kenya. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya sababta hooyada Ikraan aysan uga hadlin degmada Fahad Yaasiin loo diray inuu magaalada Muqdisho soo aado ama uu yimaado ayadoo hooyaqaali ay Fahad Yaasiin ay doonaysay in cadaaladda la mariyo. haddaba sababta ay hooyaqaali ay uga hadli weyday degmada ay Roble iyo sidoo kale kooxdiisa ay u hortaageen maalintii shalay ahayd inuu Fahad Yaasiin magaalada Muqdisho yimaado ayaa dad badan su'aalo iska weydiiyeen. la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo mudane Fahad Yaasiin oo laga yaabo markuu dalka ku soo laabto inuu dacwad ku furo ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga labada nin ay u kala magacaabo Roble. inkastoo ra'iisul wasaaraha cidii doonaysa inay maxkamadayso aysan fududayn in si qof caadi ah oo kale loo dacweeyo. dhegeystayaal warkeena qodobada wada xasaasiga ah ayaa ku maqli doontaan ee ku soo dhawaada warkeena oo fidsan. sida aynu ka helnay مسؤولين كأبلو تريها نبض سويدة تريه رأي نبض سويدة هذا على تريها أمني قرن كفهد ياسين ما أنت أصدقي تون كبشة وحاول كسرين هذلك تركيا دارهان مجال اسطنبول فهد ياسين يا سو نوحل الشيعيين ما أنت كباق ذي السفر وكل ما لها مجال مقدشو أهمين كحالها أيو كل عبتي مجال اسطنبول
ayadoo dowladda Turkiga ay dejisay mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan magaalada Istanbul ayadoo amniga la taliyaha amniga qaranka ay dowladda Turkiga ilgaara ku eegayso sidoo la xaqiijiyay maanta 18 bisha ah kuna beegnayd in Fahad Yaasin uu guddiga amniga qaranka ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo uu siiyo xogta Ikraan Tahliil ayaa la xaqiijiyay inuu baaqday oo safarkiisa uu ka baaqday laba diyaaradood oo ay midna tahay mid ciidan midna ay tahay mid rayid ayaa waxa ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxayna labada diyaaradood soo kala caga dhigteen midda rayidka waxay soo caga dhigatay qaybta diyaaradaha rayidka isticmaalaan waa diyaaradda Turkish Airlines waxayna waday dad shacab ah oo ahaa dadkii maalinta shalay ahayd ay dowladda Djibouti ku dhibaataysay dalkeeda una laabtay Turkiga maantana yimaaday sidoo kale diyaarad kale oo military ayaa iyaduna waxay ka degtay garoonka diyaaradaha qaybta afisyoona ama qaybta ciidanka diyaaradaas ayaa sida aynu warar hoose ku helayno waxa ay siday hub iyo ciidan Fahad Yaasin ayaa soo waxa uu waday warbixin iyo xogo ku aadan kiiska Ikraan Tahliil ayadoo qorshahu ahaa in maanta uu golaha amniga qaranka uu ka horjeediyo xogta Ikraan Tahliil waxaana wararku sheegayaan in Fahad Yaasin uu hayay warbixino codad xogo aad u waaweyn oo ku aadan kiiska Ikraan Tahliil ayadoo ra'iisul wasaare Roble uu aad uga cabsi qabay in xogtaasi uu soo bandhigo Fahad Yaasin ra'iisul wasaare Roble ayaa soo waxa uu muddo badan hor istaagay in taliyaha hore ee nabadgelyada Fahad Yaasin uu soo bandhigo kiiska ama xogta sargaalad Ikraan Tahliil ayadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiiyeen sababta uu ra'iisul wasaare Roble u hortaagan yahay ama uu uga soo horjeedo in Fahad Yaasin uu soo bandhigo xogta kiiska Ikraan Tahliil dowladaha Turkiga iyo Qatar ayaa iyagu waxa ay dowladda yar ee Djibouti culays weyn ku saareen in ay fasaxaan taliyaha hore ee nabadgelyada Fahad Yaasin ayagoo cadaadis weyn ku saaray ama aad uga canaantay sababta ay u xaniyeen taliyaha hore ee nabadgelyada Fahad Yaasin ayagoo dowladda Djibouti ay arrintaasi aad ugu ceebowday dhanka kale golaha amniga qaranka ayaa isagu waxa lagu wadaa in maanta uu soo bandhigo ama lagu soo bandhigo xogta sargaalada Ikraan Tahliil golaha amniga qaranka waxa uu ka kooban yahay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha wasiirka amniga wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada dowladda haddaba arrintaas waxa aad loola yaaban yahay qaabka lagu soo bandhigi karo xogta Ikraan Tahliil maadaama golaha amniga qaranka uu laftirkiisu kala qaybsan yahay wasaaradda amniga laba wasiir ay hadda leedahay taliyaha nabadgelyada laba taliye ay leedahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isma haystaan sida daraadeed ma dhici karta ayaa leeyahay in golaha amniga qaranka uu si wadajir ah u fariisto waxaana laga yaabaa in garabka madaxweyne Farmaajo ay fariistaan halkaasna lagu soo bandhigo xogta sargaalada Ikraan Tahliil lama oga shirka golaha amniga qaranka in uu maanta u baaqan karo maqnaanshaha Fahad Yaasin uu maanta ka maqan yahay dalka inkastoo laga sugidu ay sakariya ahaan jirin Fahad Yaasin oo ay jiraan saraakiil badan oo la soo shaqeeyay Fahad Yaasin qaarkoodna aad ugu dhawaa oo ayagu ay soo bandhigi karaan haddana ma hubno in maqnaanshaha Fahad Yaasin ay saameyn ku yeelan karto warbixinta la rabay maanta in la yeesho balse wararku waxa cadeynayaan maanta in la bixi in golaha amniga qaranka uu fariisanayo laguna soo bandhigayo xogta kiiska sargaalada Ikraan Tahliil sida warar kale ay ku helayno Fahad Yaasin wuxuuna ku imaanayaa diyaarad khaas ah oo ay leedahay Turkiga diyaaradaas oo ay sijirin cid argagadeyn karta meel ay transit ku maraysana ay sijirin oo ay sijirin Djibouti ama dal kale oo ay madarisna sida Kenya Ethiopia iyo Djibouti oo diyaaradaha caalamiga imaan markay Soomaaliya imaanayaan ay transit ku maraan dalalkaasi ay ku mareen oo toos Djibouti ay keenayso lamana oo goorta ay keenayso balse maanta gariirka hore ma uu soo bixin laga yaabo warkan markii aynu soo dhignay kadib inuu soo baxo inta kale hooyada dhashay sargaalada Ikraan Tahliil hooyo qaali guhad ayaa iyadoo maalintii shalay isaga baxday magaalada Muqdisho dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay su'aalo iska weydiiyaan habdhaqanka hooyo qaali markii la afduubtay gabadhooda oo la waayay maalintii la afduubtay maalintii ku xigtay ayay warbaahinta la hadashay waxayna sheegtay in gabadheeda uu afduubtay taliyaha nabadgelyada Fahad Yaasin iyo sidoo kale Cabdullaahi Kulano oo isagu ahaa ku xigeenka Fahad Yaasin dad badan ayaa waxa isweydiinayaan sababta ay hooyada gabadhaasi
hal maalin kadib markii gabadheeda la waayay ay warbaahinta u hadashay oo ay ayadoona hubsan gabadheeda meesha laga aaday cidda afduubtay ay dusha uga saartay taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo sidoo kale nabad sugidda. arrinta laga yaab kale ayaa waxay tahay in hooyo qaali ay maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho isaga baxday. hooyo qaali warbaahinta lama ay sahalin kamana ay sahalin xaaladii hadda ugu dambeysay. Fahad Yaasiin oo asagu ah shakhsiga ay ku eedeynaysa in gabadheeda uu dilay oo afduubtayna magaalada Muqdisho markii laga celiyay kama ay sahalin. hooyo qaali haddii ay gabadheeda cadaalad u rabto shakhsiga ay ku tuhumsanayd in magaalada Muqdisho laga celiyo sababta ay u aamustay ayay dad badan isweydiinayaan la yaabna ku noqotay. dhanka kale xarunta nabad sugidda waxaa buux dhaafiyay ciidamo hor leh oo ayagu maanta la geeyay ciidamadaas oo ka tirsan kuwa duufaan iyo kuwa kale oo ka tirsan booliska Soomaaliya. lama oga sababta loo geeyay halkaasi balse waxaa laga yaabaa in soo laabashada Fahad Yaasiin uu soo laabanayo laga yaabo inuu halkaasi gaaro si macluumaad iyo xogo kale uu la soo helo ama uga keeno xarunta nabad sugidda maadaama halkaasi lagu kaydiyo sirta dawladda iyo xogaha ay sirdoonka Soomaaliya hayaan. lama oga sababta rasmiga ah balse wararku waxay sheegayaan in tiro badan oo ka tirsan ciidamada duufaan watana beebeeyaal oo ah ciidamo hor leh ay u gaareen halkaasi ayagoo xarunta nabad sugidda laga ilaaliyay inuu cagta soo dhigo taliyaha uu sheegay Roble in uu nabad sugidda u magacaabay. ilaa haddana waxaa la sheegayaa in uu jirin meel uu ku shaqeeyo ama xafiis uu ku shaqeeyo. dhanka kale magaalada Balad Xaawo waxaa ka dhacay shaqaaqa u dhaxaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Kenya. ciidamada Kenya ayaa iyagu saaka waxa ay xabad la dhaceen muwaadin Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah kana mid ah dhalinyarada magaalada Balad Xaawo ayagoo la sheegay in xabadda ku dhacday muwaadinkaasi ay sababtay inuu dhinto. intaa kadib ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isla markiiba arrinta jawaab ka bixiyay waxa ayna weerar ku qaadeen ciidamada Kenya ee ku sugnaa xuduud beenaadka ayagoo halkaasi la sheegay inay isaga carareen waxayna halka uga tageen gaadiid dagaal. ciidamada Kenya waxaa jira dhaawac soo gaaray askartooda qayb ka mid ah balse ma jiro wax ka dhintay inkastoo lagala wareegay gaadiid dagaal. madaxweyne Farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku furnaa dagaalo dhinacyo badan lamana oga xaaladda u dhaxaysa xaaladda Kenya iyo Soomaaliya haddii ay ka darto oo dagaal hubeysan ay dhexmaraan ciidamada dawladda iyo kuwa Kenya sida uu noqon doono xaaladda madaxweyne Farmaajo ayagoo hadda dagaalo dhinacyo badan ah ay ku furan tahay. dhanka kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka mid ah mucaaradka waaweyn ee madaxweyne Farmaajo ayaa si adag kaga falceliyay go'aankii uu shalay Roble uu kaga hor istaagay diyaaradda Turkish Airlines oo magaalada Muqdisho u soo siday muwaadiniin Soomaaliyeed oo shacab ah iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin. Cumar Cabdirashiid ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay muwaadiniin Soomaaliyeed in laga hor istaago inay dalkooda u soo safraan waxaana falkaas uu ku tilmaamay mid halis ku ah dowladnimada Soomaaliya. waxa uu ra'iisul wasaare hore sheegay mustaqbal caafimaad qaba lagu heli karo in la dhowro xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo laga fogaanayo go'aan kasta oo qof muwaadinimadiisa lagu dulmin karo isagoo wax dambi aan dalka ka gelin. hadalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ku soo aadaya xilli uu xargaha goostay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo isaga ayagoo madaxweynuhu awoodiisa dhimay. Roble ayaa u muuqda inuu waayay garba culus oo siyaasadda ka mid ah si garba cusub oo isaga aad uga dhawaa sida maamul goboleedyada iyo xubno sare oo ka tirsan mucaaradka kadib markii uu qaaday talaabooyin halis gelinaya dalka isla markaana doorashada Muqdisho gelinaya. dhanka kale 22 bishan oo ku beegan maalinta talaadada ah waxa magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ka qabsoomaya shir xasaasi ah shirkaas oo dhabarjab ku ah ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay. shirkani waxa isugu imaanaya 5 dowlad goboleed shirkaasi kama uu qaybgalayo ra'iisul wasaare Roble iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. arinta isweydiinta mudan ayaa waxay tahay in Roble uu asagu yahay shakhsiga loo xilsaaray doorashada dalka inuu hogaamiyo balse shir looga hadlay arrimaha doorashooyinka uu ka qaybgelin taasoo ah natiijo ka dhalatay dagaalka bila sababta ah ee maalmihii ugu dambeeyay uu kala jiray madaxweyne Farmaajo
iyo taliyii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin. Roble ayaa waxay ku noqotay arrintan dhabarjab weyn. Roble ayaa filinayay haddii uu dagaal ku qaado madaxweyne Farmaajo inuu howlo ka heli doono beesha caalamka maamul goboleedyada, balse nasiib wanaag taasi ma aysan dhicin oo maamul goboleedyadu waxay qaadeen tilaabo lama filaan ku noqotay asaga, halka beesha caalamkuna ay ku dhiirigelisay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay inay isxaliyaan oo khilaafka iyaga u dhaxeeya ay meesha ka saaraan. dhanka kale wadamada iyo hay'adaha daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa si wadajir ah uga soo saaray war-saxaafadeed khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta. war-saxaafadeedka